gobolka Hiiraan ayaa iska casilay xilkii uu halkaasi ka hayay kadib markii uu ku eedeeyay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya inay dalbatay ciidamo shisheeye oo ay ku jiraan ciidamada Itoobiya. warkan waxa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cismaan Makaraan. waxa bariyihii dambe sii kordhay iscasilaada mas'uuliyiinta maamulka maxkamadaha Islaamiga gobolka Hiiraan ee taageersan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyadoo mas'uulkii ugu dambeeyay uu ahaa taliyaha amniga degmada Beledweyne Sheekh Ibraahim Yuusuf oo habeenkii xalay iska casilay xilka uu hayay maamulka gobolka. Sheekh Ibraahim Yuusuf ayaa u talaabay isaga iyo tira ciidamo u watay xaafadda Holwadaag ee dhinaca galbeed ee degmada Beledweyne halkaas oo ay hore ugu sugnaayeen xoogga Islaamiyiinta ee ka soo horjeeda dawladda ku meel gaarka Soomaaliya. sheekha ayaa shir jiraayad ku qabtay magaalada Beledweyne waxa uu kaga warramay sababaha ku keentay inuu xilligan xilka iska casilo. maamulkii midowga maxaakiimta gobolka Hiiraan ayaa maaragtay kalsooni kala noqday dawladda ku meel gaarka marka أنا ما مقاسم وحكي هاي مركز أسعسلات أنا كله بيجمعهن مركز أسعسلات بس ما مقدمة أسعسلي حتى هو المركز أسوأ دولتي وحان واني إني ما أعرف وحشد الإسلام في كتة من أي مهن وبلنت يصير لبلا من الإسلام في اللي قدر من هذا يكبر بحثي وهذا الإنسان يعني ما أعرف مجالي وحن ما انتصر ما أعرف انت عن مهن مركز نروح ورجع نقص يرمي إن كمان وحان أيا برأسك هذا ميوانا كل حلب sidoo kale taliyaha amniga degmada Beledweyne Sheekh Ibraahim Yuusuf Sheekh ayaan weydiiyay ujeedada uu xilka isaga casilay iyo waliba cidda uu kala tashtay waa kan mar kale taliyaha amniga degmada Beledweyne وانا مقدميها نجوبه لكن مثل بتوفيق هاي وتسميه هاي وإيشهذي أنا ما أعرف هاي برنامج كان هو برنامج عن كشقي كرامة ومسألة كرامة أيهم أنا ما أعرف هاي ما ممكن هرو يضحي كالشيء كلا كمد أنا راعي وإيشهذي وأنا بشهد وأنا إن شاء الله تعالى وأنا فيهم إن شاء الله تعالى سأسمع دين الأسئلة توبي عند البركة أنا سوى شلب ولا بجالمين وما كان ولا بجالمين أنا لا بجالمين إلا رالي فيه واحد الله أنا قد ملها واحدين أنا قد حيبلك وجين سامتها أسكال إلها ما si kastaba ha ahaatee bariyihii dambe ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay ku sugnaayeen maamulka maxkamadaha Islaamiga ee taabacsan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya waxa ay bilaabeen inay xilkooda iska casilaan. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Xasan Sheekh oo ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa iska casilay xilka gudoomiye ku-xigeenka ee gobolka kaasoo u aanayay dawladda ku meel gaarka Soomaaliya xilligan inay dalbatay ciidamo shisheeye isla markaana aan la shaqeey karin. sidoo kale waxa xilka iska casilay gudoomiyihii maxkamadda Racfaanka iyadoo horeyna ay xilka isaga casileen gudoomiyaha maamulka maxkamadaha Islaamiga degmada Beledweyne Sheekh Ibraahim Jilibey iyo madaxii golaha shuurada iyo mas'uuliyiin kale oo aad u fara badan. inkastoo uu ugu dambeeyay taliyaha amniga degmada Beledweyne oo habeenkii xalay xilka iska casilay lamana oga dawladda ku meel gaarka gaar ahaan maamulka maxkamadaha Islaamiga ee taabacsan dawladda sida ay ka yeeli doonaan. hase ahaatee iscasilaada mas'uuliyiintani ayaa imaanaysa xilli gudoomiyaha maamulka maxkamadaha Islaamiga gobolka Hiiraan Sheekh Cabdiraxmaan Ibraahim Macu oo safar ugu maqan yahay magaalada Muqdisho kaasoo aan ujeedadiisa saxaafadda loo shaacin.